Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhowow daawaday barnaamijkeenii taxanaha inoo ahaa ee dhimashadii caddeyd qaybtiisii 10aad. Qareenkii booliiska ayaa dhahay, ma ahan sheeko aad u wanaagsan, waad og tahay, ma aaminsani, ma u malaynayo in xeerbeegtadu aaminayaan ninka dhallinyarada ahow. Wuxuu joojiyey daqiiqad, kadib wuxuu fiiriyey Xasan. Wuxuu si qaylile u dhahay, ma jeclid Saare Haaland, iyadana ma ku jeclo. Waxaa soo raacday iyada sababtoo ah way ku caawinaysay. Way ku soo raacday sababtoo ah waxay doonaysay lacag. Waxaynu u soo qaaday herointa adiga si loo gado. Taasi way saxan tahay, miyaysan ahayn? Wuxuu herointa ku shubay daawada cadayga, iyadana way ogeyd. Taasi ma ahanoo sheekada runta ah ninka dhallinyarada ahow. Maya, Xasan ayaa bilaabay si xanaaq leh, laakiin qareenkii ma dhagaysanin, wuuna fadhiistay. Ma hayo su'aalo aad u badan, ayuu ku dhahay xaakimkii. Cutubka 5aad. Xaakimkii wuxuu fiiriyey warqadihiisa, kadib xeerbeegtadii. Hadda waa 4tii galabnimo, ayuu dhahay. Waxaynu bilaabaynaa subaxii. Fadlan joog halkan 10kii. Xaakimkii wuu istaagay, wuxuuna ka tagay maxkamaddii. Xeerbeegtadii way baxeen sidoo kale. Booliiskii waxay xabsiga u kaxeeyeen Saare iyo Xasan. Hagaag, ninka dhallinyarada ahow, maxaynu samayn karnaa hadda? Waxaynu haysanaa 16 saacadood ka hor subaxii. Ma ogi, Steven ayaa dhahay. Wuxuu fiiriyey iyada daqiiqad, kadib wuxuu fiiriyey waddada madaxeeda ka kor horta maxkamadda. Waan hubaa Xasan wax ayuu ka ogaa herointa, ayuu dhahay. Wuxuu ku riday boorsada Saaro. Waan hubaa Saare waa dambi la'aan, laakiin Xasan maya. Mudane Jeng wuxuu la istaagay iyada waa dambi la'aan. Steven ayaa mar labaad dhahay, laakiin Xasan waa in uu dhintaa. Mudane Jeng wuxuu si taxadir leh u fiiriyey Steven. Laga yaabee, ayuu dhahay si deggan oo hoos ah. Laakiin Xasan ma dhagaysanin miyaa xilliga maxkamadda? Wuxuu dhahay, Saare ma soo gadin daawada cadayga ee waxay ahayd tayda. Hadda muxuu u dhahay taas? Ma ahan mid fudud oo la dhihi karo, waad og tahay. Waa maxay waxa ay xeerbeegtadu ku fikirayaan? Taasi dhib ma lahan, Steven ayaa si xanaaq leh u dhahay, sababtoo ah daawada cadayga ma ahayn, mana ka soo gadin dukaan. Wuxuu sameeyey tubada daawada cadayga sababtoo ah wuxuu doonayay inuu herointa iibiyo, waana in uu dhintaa. Taasi waa sharciga maxkamadda. Ana waxay fiirisay Steven, waxna ma aysan dhihin. Aad ayuu u xanaaqsan yahay, ayay ku fikirtay. Wejigiisa wuu gaduudan yahay, wuxuuna tartarayaa hadalka. Ma waxa uu doonayaa inuu dilo Xasan? Maxaana ka qaldan indhihiisa? Mudane Jeng sidoo kale wuu fiirinayay Steven. Xalqadeennii maanta intaas ayay ku eg tahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.